بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركeen waxaynu ka hadli doonaa maanta qaybtii labaad ee layerska. qaybtii koowaad waxaynu kaga soo hadalnay aasaaska iyo qaabka loo isticmaalo layerska. marka maanta haddii ilaahay yiraahdo cashirkeenan waxaynu kaga hadli doonaa qaabka layer cusub loo sameeyo, qaabka layerka duplicate loogu sameeyo, qaabka layerka group loogu sameeyo, qaabka link loogu sameeyo. qaybahaas iyo qaybo ka badan baynu ka arki doonaa cashirkeenan maanta. marka aynu soo furano software-ka qaabkan oo kale document cusub aynu soo furano ayaa waxaynu samayn doonaa sidaynu soo sheegnay si marka layer uu inoogu soo muuqdo meeshan. marka ugu horeysa layer background-ka oo fulan baa inoo soo bixi doona. marka si aan layer u samaysano shay waa inaan soo doorno marka hore, inaan shay soo furnaa. tusaale kale hadda kaas ayaynu soo furnay. marka hadda shaygan shaybkan in aynu soo furnay inuu shayb yahayna waad garanaysaa, calaamadaas aynu shalay kusoo sheegnay buu leeyahay. marka shaybkan waxaynu u baahannahay mid kale inaynu duplicate ka samayno. tusaale kale sidaas oo kale ayaynu u samaynaynaa. qaab kale aynu u samayn karno waxaa waaye inaynu halkan aadno, inagoo halkaa joogna aynu samayno right click intaan dhahno waxaynu ka tegi doonaa halkaas duplicate layer. duplicate layer haddaan dhahno tusaale kale magac u bixi baynu oran doonaa, isagu kaasuu ina siin doonaa rectangle 1 copy buu oran doonaa isagu. marka hadda inagu intaynu iska bedelno waxan ayaynu 2 oran doonaa. marka kadib okay baynu siin doonaa. marka layer cusub oo isla kiyaabaa inoo furmay hadda, laakiin xaggan wuxuusan uga muuqanin way isdul saaran yihiin. marka qaabkaad u kala qaado saas baad u jeedi doontaa. marka hadda waad ujeedaa laba layer baa inoo samaysmay. qaabkaasa marka duplicate loogu sameeyaa. duplicate qaabka shortcut-ka isticmaali karto waxaa waaye isagana adigoo halkaa jooga inaad control J haddaad sidoo kale isagana duplicate kugu samayn doonaa. waad ujeedaa hadda mid kale meesha saaran, marka waynu ka jiideynaa isagana. hal mar oo kale haddaynu duplicate u baahano waxaan samayn doonaa isla sidii un shortcut waan isticmaali doonaa. haddii wadada kale aad rabtidna right click intaad dhahdo ayaad kadib halkaas kasoo dooran doontaa duplicate layer baad oran doontaa. marka isaguna magaca u bixi buu ka oran doonaa, laakiinse isagoo qaybtan buu qaadan doonaa copy 2 buu oran doonaa. marka hadda sidiisaas ku dhaaf. waxaan isticmaalaynaa shortcut-ka control J kadib halkan aan samayno. marka hadda waa ujeedaa waxaynu haysanaa 4 layer oo kala duwan oo mid walba hadaynu kan qarino tusaale waa ujeedaa hadda kaasaa qarsoomay kii u horeeyey, hadaynu ku sareeya qarino oo kii u dambeeyana isaguna waa kaas qaabkaas u samaysan doonaa. marka halkan waxaa loo yaqaanaa visibility. visibility marka waa muuqashada. haddii isha aad ka qaado anaa waxay ka dhigan tahay ma muuqanayo, haddii isha uu haystana tusaale kale kaas waxuu jeedaa. adigu hadda dhammaan kan xaba besaan rabnaa labadan hoose inay noo soo baxaan, labadaas kore aynu iska qarinaynaa. marka waa ujeedaa hadda labada bes inaynu haysana ayay ka dhigan tahay. marka macnaheedu haddaynu soo furana way noo soo bixi doonaan. marka qaabkaasi waa qaabka visibility-ga loo isticmaalay, layerka visibility-giisa aad soo qarin doontid. hadda marka qaybahan duplicate-ka qaabkaasaa loo sameeyaa. layer aad haysatay qaabkaasaa loogu sameeyaa duplicate ama mid kale looga sameeyaa. qaabka kale aynu arkayna waxaa weeye qaabka shortcut-ka aad isticmaali kartidna waa inaad control J isticmaasho haddaad duplicate u baahan tahay. hadda marka shayga ugu horeysa shayga kale aan arkayna waxaa weeye inaynu link ku sameyno, aynu isku xirno. tusaale haddii aynu kan qaadno mid walba gaarkiisa buu u qaadmaya. hadda waa ujeedaa mid walba gaarkiisa buu u qaadmaya, laakiin waxaan u baahannahay inaynu hal mar aynu wada qaadno dhammaantood. marka waxaan samayn doonaa si aynu saa u samayno link baan oran doonaa. linkiga laba qaab baanu samayn karnaa. inaynu hadda kan click siino inagoo kaas hayna aynu intaan shift dhahno ka u koreeya tagno. marka iyaga waa ujeedaa waynoo wada doormi doonaa. ku celiya hal mar ka u hooseeya intaad doorato ayaad shift qaban kadib ka u koreeyaad isagana click ku siin. marka dhammaantood hal mar bay kugu selectionka lagu wada saari doonaa. qaabka loo samayn karto waxaa weeye halkaas haddaad ka dooranayn oo dooran kartid halkaas meel bannaan intaad timaado canvaskaaga ama documentkaaga inaad sidaa ugu soo jeedid drag aad ku samayso. haddii isla markaas si kale iyadana sidoo kale waxay kuu samaysmi doonaan inay selectionka lagu saaro dhammaantood. hadda dhammaantood iyagoo hadday saa yihiin wada qaadi doontaa, laakiinse haddaan selection ka qaado isla sidii un bay yihiin, macnaha mid un baa qaadmi doona. marka waxaan u baahannahay inaynu hal mar wada qaadno oo hal mar wax ka bedel ku samayno. marka sidii hadda selectionkeenu dooran doonaa kadib halkan waxaan ku oran doonaa right click. halkan aynu right click oran doonaa kadib waxaan samayn doonaa link layers inaan dhahno link layers. marka hadda haddaan ka qaadno hadda dhammaantood hal mar bay wada qaadmi doonaa. sababtu waxay tahay macnaha inagoo selection ka qaadno weliba. sababtu waxay tahay wax walba waan kabedel baan ku samaynay, laakiinse linkigu macnaheedu ma aha haddii tusaale kale kan aad wax kabedel ku samayn rabto aan color ka bedelno. colorka haddaynu ka bedelno macnaheedu ma aha colorka hal mar bay wada qaadanayaan. marka isaga midkii aad wax ka bedeshay tusaale kale kan haddaynu u baahannahay colorkiisa keligiiba macnaha wax kabedelku ku dhacaya, laakiinse markay noqoto in la jiijiid iyo qaadqaaditaan ay noqoto waxaad samayn doontaa marka ay qaadqaaditaanka noqoto way wada qaadmayaan oo way isku xiran yihiin. marka linkiga macnaheedu waa inay isku meel kugu xiran yihiin. marka qaabkaasaa linkiga loo sameeyaa. haddii aad u baahan tahay marka halkii aynu ku laabano, haddaynu marka halkiisi u horreysa ku laabano qaab kale aynu linkiga u samayn karno waxaa weeye haddaynu halkan baynu ka dooranayna marka hore
shift baynu dhahayne kadib halkaasaynu dooranayne waa isku xidhmayaan marka qaab kale aynu dooran karnaa marka waxaa waaye hadda linkiga aad uga qaadi kartid mararka qaarkood linkiga inaad ka qaadaad u baahan tahay kadib marka waxaad oran doontaa halkan ama adoo jooga ama adoo halkan jooga hadaad selectionka wada saarayso control a dheh hadaad u baahan tahay shift intaad dhahdo hadda dhammaantood saasay ku wada saaran yihiin right click un badan markaad ka qaadayso way hadda halkii linkiga ahayd unlinki bay ku oranaysa macnaha unlinki maadaama already isku xirnaayeenba unlinki waa marka inaad ka qaado waxaa weeye linkiga isku xirnaanta waa inaad ka qaado kadib unlinki haddaynu dhahno way kala wada furmi doonaan dhammaantood mid walba gaarkiisi baynu u kala qaadi karnaa u jiijiidi karnaa qaabkaasina marka waa qaabka la isugu xidho layerska aad wax markaas aad hal mar u wada jiidi kartid laakiin linkigu macnaheedu ma aha in ay hal mar wax kabedelku ku wada dhacayo waxaan hadda arkaynaa tusaale layerska qaabka group loogu sameeyo groupka mar walba waxa uu kuu nidaaminayaa inuu layerskaaga tusaale haddaynu xaggan 10 shapes iyo 10 text layer iyo 10 images haddaynu soo doorano halkan macnaha layerskeenu waqti waxay naga qaadanaysaa inaynu aragno aynu soo saarno waxaan u baahnay markaas macnaha organizer ma noqonayo wax isku dhextaagan buu noqonayaa marka si aynu taas uga baaqsano waxaynu halka ka dhigaynaa inaynu group ku sameyno wixii isleh tusaale kale hadda shapeskan inay isleeyihiin baynu ka dhigaynaa marka waxaynu samayn doonaa sida kii baynu oran doonaa selection ka saari doonaa kadib halkan baynu right click oran doonaa labada qaab waan arkaynaa inaad marka halkan markaad doorato inaad halkaa group from layers dhahdo group from layers haddaad dhahdo marka waa ujeedaa magaca buu groupkaaga uu bixi oran doonaa marka layers baan dhahaynaa hadda okay marka hadda waa ujeedaa dhammaanteed hal layer baa la iskaga dhigay oo tusaale haddii marka iyaga hal mar haddaynu isha ka qaadno visibilityga dhammaanteed way ka wada qaadnayaan isha laakiin linkigu saasuu ka duwanaa oo midkii aad u baahan tahay unbaa marka ka qaadaysa group laakiin marka layerska oo dhan ba halkan ku jiray ka dhiganta haddii aad u baahan tahay inaad soo furto fallaadha yar calaamadaas umaad ku dhufan kadib wuu kusoo bixi doonaa mid baad uga qaadi kartaa markaas way kala madax bannaan yihiin laakiinse markay group yihiin oo hal mar bay isha ka wada qaadmayaan oo ay kaa baxayaan bay ka dhiganta macnaheedu iyaguna sidoo kale groupku wuxuu kaa caawinayaa markaad u baahato tusaale kale inaad sheegan groupkiisa aad doorato groupka marka wuxuu kaa caawinayaa inaad hawshaada nidaamisid oo mar walba ay kuu nidaamsan tahay waxa aad markaas samaynayso ayuu isagaa markaas uu kaa caawinayaa inay kuu nidaamsan yihiin marka groupkaada tusaale haddaynu audacity-ga aynu ka yarayno audacity-ga ka yarayno baa ka yaraysmaya macnaheedu marka ma ahan inay isbedelka wada qaadanayaan ma aha hadaynu group ku celino laakiin marka waa ujeedaa markay wada qaadanayaan waa markuu groupku wada dooran yahay weye wax kabedelka rabta inaad ku samayso hadda tusaale audacity-ga markaynu ka yarayno qaabkaasay marka ay uga bedelmaysaa marka group qaabkaasaa loo sameeyaa haddaynu groupka marka aynu ka qaadi rabno waxaan samayn doonaa halka layerska intaynu taagno right click aynu dhahno marka ungroup halkaas baad oran doontaa ungroup layers marka waa kala saar weye haddaba kala saaran yihiin oo group kuma jiraan qaab kaloo dooran karta waxaa weye intaad shortcutka intaad highlight saarto aad control G baad oran kartaa control G markaad dhahdo isla sidii oo kale qaabkaas kuugu samayn doonaa qaab kaloo saddexaad oo samayn karto waxaa weye groupka iyagoo sidaa kugu highlight garaysan inaad layerska tagto qaabkaas xaggaas menuga layerska inaad tagto halkan aad kasoo doorato maxaa la yirahdaa group layers iyaguna sidoo kale marka shortcutkan isticmaalayno waa kaas saddexdaa qaab marka waad isticmaali kartaa group baad uga dhigi kartaa layerskana qaabkaasa group loogu sameeyaa qaab kaloon hadda arkayna waxaa weye qaabka merge loogu sameeyo shapeskan ama layerska marka merge aynu leenahay waxaa weye waxay ka dhigan tahay hadda linkii mayna wada qaadan jirin isbedelka kamayna wada saneen sidoo kale groupka kamayna wada saneen mid walba gaarkii wax looga bedelayay laakiin mergigana wuxuu uga bedelan yahay dhammaantood isbedelku uu ku wada dhacaya marka si aynu merge uga dhigno sidoo kale mar walba aynu wax ka bedel ku samaynayno waa inaynu highlight samaynaa marka highlight saa markaynu samayno waxaan dooran doonaa right click xaggan layerska kadib waxaynu dooran doonaa merge shapeska waxay ka dhigan tahay dhammaantood buu isku bedel ku dhici doonaa haddaad color ka bedesho ama yarayso ama wax walba dhammaantood buu ku wada dhici doonaa marka hadda merge shapes aan dhahno waa ujeedaa shape buu inoo yahay laakiinse wax ka bedelka markaynu ku sameynano tusaale kale hadda colorka aan ka bedelo marka waa ujeedaa haddaynu color ka bedelo dhammaantood buu colorka ku wada bedelmaya qaabkaasaana layerska looga dhigaa merge shapes marka hadda waxaynu arkaynaa layer styleska lagu daro sida laga koobiyeeyo mid kalena pasta loogu yaado tusaale kale hadda kalena soo dooranaynaa kalena waxaan ku daraynaa drop shadowga markaynu sidaa ugu darno sidoo kale outer shadow baan ku daraynaa marka hadda layerkani styles buu leeyahay styleskiisaas rabnaa inaan ka koobiyeyno marka ku kaloo halkaas aan tusaale kale kaasoo kalena aan taas ku dhahno markaasoo kale waxaan samayn doonaa layerkiinu dooranana aynu wax ka bedel ku samaynay styleska u samaynay right click baan dhahaynaa kadib halkaas aynu tagaynaa copy layer style intaynu dhahno ayaynu oranaynaa kadib waynu ka baxaynaa midkii aynu ku koobiyey rabnay waan tagaynaa
isla sidoo kale isagana right click baan dhahaynaa isla halkii waxaad u jeedaa inay hadda kasoo baxday past layers toos buu wuxuu u qaadan doonaa kii hore waxaad ku samaysay marka past layers aan dhahno hadda waa u jeedaa dhammaan kani wuxuu leeyahay uu kana leeyahay marka qaabkaas isagana sidoo kale layer waxaad ku samaysay looga bedelaa hal mar waxaynu arkaynaa qaabkii hore aynu kusoo sheegin layer cusub sida loo sameeyo tusaale kale haddii aad wax markaad aad samaynaysid gradient iyo waxaasoo kale ama text ama wax walba aad samaynaysid layer cusub qaabka loo sameeyo isagana waxa weeye halkaasoo kale inaad ku dhufato kadib layer cusub baa kuu samaysmi doona sidoo kale groupkii hadda aynu sheegayno waxaan samayn doonaa markaynu highlight saarno hadda tusaale waxaan samayn doonaa inaynu soo jiidno kadib halkaas aynu ku dul keenno halkaas haddaynu sidoo kale keenno iyadana group buu inoo samayn doonaa way qaabkaas aynu iyadana sidoo kale markaynu groups ka sheegayno aynaan sheegin qaabkaasaa loo isticmaali doonaa marka layer haddaad u baahan tahay isaga inaad delete garayso aniga hore soo sheegnay dhowr qaab waa samayn kartaa inaad hadda layerka halkaa kusii duldayso kadib saasuu kii markaa kaga tegay control zero aan dhahno qaab kale aad delete garayn karta layer waxaa waaye inaad markaa halkaa doorato kadib delete backspace caadi aad doorato iyadana sidoo kale qaabkaasu kaaga tegayaa qaab kaloo aad u delete garayn karta layer waxaa waaye inaad halkaa doorato kadib aad layerska ka tagta halkan menuga kadib aad ka doorato delete layer marka waad ujeedaa waxaad samayn kartaa qaabkaasu kale ku weydiinaya yes ama no kadib haddii aad u baahan tahay inaad ka noqotana no waad oran haddii aad markaa hubtana waxaad oran doontaa yes hadda marka yes aanu dhahno saasuu inooga bixi doonaa layerkii markaan soo celino control zero baad oran mar walbaad soo celin sida qalad kaaga dhaco qaabka kale markaa qaababkaasi waa qaababka u badan marka qaabka loo qarin karayo layer isagoo kuu joogan waxaad samayn doontaa waa visibility umaad ka qaadaysaa marka waa inagii hore usoo aragnay marka qaababkaas aynu kusoo ekeenaynaa cashiradii aynu layers kaga hadlaynay khayr badan baan idin rajaynaa inaad ka faa'idaysteen baan rajaynaya subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk